Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood qaadatay oo uu ku joogay dalka Ereteriya. Intii uu ku sugnaa Ereteriya ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh oo weheliyo Madaxweyne Afwerki waxa uu booqday ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalkaas muddo 3 sano ah iyo mashruucyo dhowr ah oo horumarineed oo dalkaas ka socda. Ka hor inta uusan ka soo dhoofin dalkaas, Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhiggiisa Ereteriya Siyaasi Afwerki ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah kaasi oo lagu baahiyay bogga wasaaradda warfaafinta Ereteriya, waxayna labada madaxweyne isku raaceen qodobada soo socda. 1. Xoojinta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan bulshooyinka qurbo-joogta ah. 2. Xoojinta iskaashiga siyaasadeed iyo diblomaasi si ay u ilaaliyaan sarena ugu qaadaan danahooda qaran. 3. Baalmarinta iskaashiga dhaqaale iyo bulsho iyada oo diiradda la saarayo ganacsiga, maalgashiga, amniga, biyaha, beeraha, kalluumeysiga, caafimaadka iyo waxbarashada. 4. Kobcinta wada shaqaynta dhanka dhaqanka, farshaxanka, dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha iyo sidoo kale sayniska iyo tiknoolajiyadda. 5. Sare u qaadidda iskaashiga si loo ilaaliyo sare loogu qaado deegaanka waxaana looga qabto masiibooyinka dabiiciga ah iyo cudurrada safmareenka ah. 6. Xoojinta iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda, xasilloonida iyo ammaanka. 7. In si wadajir ah loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo, iskaashiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika.